beel caalam oo looga dacwo kara male maxaa yeelay wuxuu ahaa nin adag maxamed cabdullaahi farmaajo oo beesha caalamka yar iska dhigi kara la diid meel kasta dhibaato ka timid markii ciidamada qaranka ay noqdeen ciidan qaran oo mushaar fiican haysta waxa suuqa la soo galiyay ku turi ku teen aan waxba ka jirin maxaan u leeyahay waxba kama jiraan maanta maxaa loo waayay hadday run ahayd wixii shalay la sheegay maanta maxaa loo waayay 10 bilood ayaa kor loo dhaafay lama hayo wixii shalay naloo sheegi jiray maxaa shalay naloo sheegay waxaan xusuustaa markii la yiri ikraan tahliil fahd yaasiin dilay ilaahay oo naga afi la yiri fahd iyo hay'adda nabad sugidda ka dambaysa rag fara badan ayaa arintaasi marqaati nool noqday waxa kamid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waliba tacsi u dhigay waxa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore maxamed xuseen rooblo yiri dadkii dilayaan aqoon u leeyahay wallahi ka been abuuri maayo oo billahi oo tallahi tacsidii aamina ayuu yiri SMS aan la soo diray anigoo anaaba lay hanjababa dalkii wuxuu marayaa in ra'iisul wasaare dil loogu hanjabo saddex maalmood loo qabtay fahd yaasiin waxa la yiri dambi baad ku eedaysantaa dalka imaw markuu yiri diyaaraan u ahay dalka inaan imaadaan rabaana magaalada Djibouti dalka Djibouti hadana loo istaagayo la yiri Ismaaciil Umar Geelo bal ninkii intaad qabato sida doonto u gal xaq allo ka noolyahay mooyaane fahd maalintaasi magaalada Djibouti dalka Djibouti waxba loogu tala galay fahd kii la yiri hayimaado hadana isla afkii lagu yiri hayimaado ayaa hadana lagu hor istaagay waxaan xusuustaa tacsi ay dhigeen madax oo ay ka soo qayb galeen markii laga reebo Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Cali Khayre intaan ka ahayn xafladaasi goobjoogi ka ahaayeen waliba maalinta xafladaasi la dhigay waxaan weydiiyay labada nin ee maqan maxaad uga soo qayb gali laadihin anigoo Cabdullaahi Barwaana waxay ugu yiraahdeen wax aanan barito run noqonayn wajigeena in aan ku qasaarino diyaar uma nihin waa labadii nin ee banaanka arintaasi ka istaagay Xasan Cali Khayre xafidullah iyo Shariif Sheekh Ahmed maxamed xuseen rooblo waxaan halkan uga fadhinaa labada gabdhood dadkii dilay waan aqaanaa buu yiri waan naqaanaa waxaan ka rabnaa inuu noo sheego ikraan tahliil qofkii dilay oo haddana xildhibaanad aamina dilay meeshii ku dambeeyeen ha noo sheego hooyadii ilaa muddo meediyaha ka hadlaysay oo dhibanayd oo gabadheeda xaqeeda raadinaysay maxaa ku dhacay markii talada dalka farmaajo uu ka degay maxaa hooyadii lagu sameeyay hooyadu marka ay xaaladdu halkan ay gaadhana maxaa aamusiyay waxaan rabaa inaan aad u iftiimiyo wixii muuqdana dadka Soomaaliyeed ay ila arkaan horta fahd yaasiin iyo farmaajo haday ikraan iyo aamina dileen madaxweyne xasan sheekh iyo mahad salaad mar hore ay arintaas bulshada u soo bandhigi lahayd haday ku maqan tahay ikraan iyo aamina gacan fahd iyo gacan farmaajo mahad iyo xasan sheekh mar hore soo bandhigi lahayd anigu qofkaas ku maqan tahay dhihi maayo laakiin ilaahu naga afi intaan anigu sheegay afisaan weydiista shacabka ilaahayna afis baan weydiisanaya waxay ahayd qob moos oo loo dhigay shacabka ummadda Soomaaliyeedna loo dhigay haddii ay sax ahayd fahd iyo farmaajo inay dambigaas ka dambeeyaan fahd yaasiin muqdisho inuu yimaado looma diidi lahayn magaalada Djibouti isbaara looguma dhigi lahayn lagamana hor istaagi lahayn ikraan iyo aamina yaa dilay wixii dilaba ilaahay baa ogey waxay ahaayeen jaranjar farmaajo oo meel laga gala la waayay lagu jibinayay waxay ahaayeen jaranjar madaxweyne farmaajo iyo shacabkiisa lagu kala jibinayay waxay qayb ka ahayd hawiyihii dharigsanaa ee dawladda farmaajo ku barwaaqoobay sidii looga soo jeedin lahaa mar kalena looga dhaadhici lahaa durbaan qabiil qofka muslimka ah waa sirmaa ma jiro qof muslim oo sirmay shacabka hawiye way sirmeen mushaar wanaagsan ciidamo qaadanaya oo waliba waqti cayiman la siinayo ayaa been loo sheegay dhigta waxa loogu sheegay haddana mushaar ay qaataan iska daaya halkaan ka soo gudbinayo iyagoo leh beerka dhulka noo yaala baahi baan haysa ala kulli xaal muhiimadeydu hadda mushaar ciidan ma aha muhiimadeydu waa labada gabdhood oo dhabarkayga dambe ka muuqda waxay ahaayeen jaranjar fahd iyo farmaajo lagu koraayay kursigana waa la helay cid bil aadan wax iska weydiisa malaha ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooblan nooma sheegin message-ka away message Allah صدر message Allah صدر in la dilaa la rabaa maxay ku dambaysaa kursi la helay inta dhimata Allah naxariisto hooyo qaali hooyadii dhashay ikraan marbay qaldantay maalintaas aan gabadha xaqeedii daaqada u ka baxay maalinta ay difaacday ragga maanta dhabarka aadiyay hooyada horta maalintaas ay qaldantay waana hooyo waxaaba ka maqan gabar
marka sidaa darteed markastoo qaldanto hooyadu xaq bay leedahay waxna ka sheegi maayo laakiin maalintay hooyadu qaldantay waa maalintay aamintay raggan dhiigga aamina iyo dhiigga ikraan kursi baa lagu rabay kursigana waa lagu helay war hadalkii saxmaya ha maxaa yeelay mahad salaad wuxuu ka mid ahaa raggii u doodayay hadda ma aragteen war hadalkii saxmaya yes madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa ninkii tacsida gogasha dhigay hadalkii ma beera تعسيدي آمنة نك جوجش جورجي سدقي حسن شيقوها محمد حسين روبلو النولية حمر وجوجا هل مالين ما أركتين سوى كالله طبعا بلوت ما أركتين هو يدي مرك أفكي بجوك ذكرين ميلي معين بالدو أي جرى الله ده أفكي شلك وهذا الشيء ما أنت إصباره كن نقلين مدحتوي من الوسولوي مدحوين حسن شيخ محمود وحنا هي أو والله يا سقولنا هي مدحويني wuxuu leeyahay madaxweyne saddex maada mid qaado wali uu sheegaya waa arinta story uu leeyahay in ikraan xaqeedii meel la saaro wuxuu leeyahay waa arin damiir ah uu leeyahay waana arin diineed buu leeyahay ma beenan sheegaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo fariintan maalinta duubaysay haddaan ku tusaya maalinta duubayso lahayd farmaajo waa inuu reerka ikraan dhageystaa adigu maanta ma dhageysatid wuxuu yahay dastuurka farmaajo qabto adigu ku qaban muxuu yahay damiirta aad farmaajo qabto adiga inaan ku qaban madaxweyne ikraan iyo aaminaan kaaga fadhinaa mid aynu ku fasirno marka ila jawaab weyn weynay ma arag madaxweyne xasan oo hooyo qaali la fadhiyo ma aanan arag madaxweyne xasan oo nabadoonka gaal jecel gabadha ay ka maqnayd qancinaya ma aanan arag madaxweynaha ka hadlaya arrinta aamina lama arag marka tacsidii iyo ooyintii iyo beentii ummadda loo sheegayay ilma adeer rayaal kursiga lagu raadinay warku intaas ku egyahay madaxweyne farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka dambi ma lahayn war haddii dambi leeyihiin maanta aan arki lahayn dambi ma lahayn marka maxaa lagu rabay kursiga maxaa lagu soo jeedinaya shacabka bal waan runta qariimaad rabtaan hayga sugan marka allah heeyaka allah run damboon qarinaayo ma jirto wixii jirana barnaamijyadeeda marnaba kama aamusi doono waana ku soo gudbi doonaa hadduu alla idmo qaladna waxa wanaagsan in dib laga soo qaladna waxa wanaagsan in dib laga soo bal fiiri cadowtinimada la qaba hadda marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud maalintuu talada dalka qabtay wuxuu yiri cid aan ka argoosanaya malaha argoosigu wuxuu maanta marayaa kursigii reer oo xasan in fahad yaasin dartii maanta loo weeraray arsikaas ka weyn ma jira madaxweyne cidna ka arsan maaya tiri murusade oo aad qayr dartii aad u dhibaataynaysan waa ka soo hadlay doona murusada maxaa loo colaadinayaa qayra farmaajo la shaqayn jiray awgeed armaxan sir soo wada armaxan sir soo wada armaxan sir soo wada wax badan baan daaha ka rogi doonaa laakiin ima daawo kartid haddaadan channelka aftahan production subscribe saaran maxaa yeelay meel kalood iga daawo karayso ma jirto run haddaad rabto channelkan aftahan production subscribe saaro calaamadda kabalka furo wax badan baan daaha ka rogi doonaa ugu dambayn labadaasi gabdhood allah u naxariisto qofkii dilayna sharciga ayuu waafaqi doonaa cid aan ka dhageysanayno fahad iyo farmaajo gabdhahaasi dilay ma jiro maxaa yeelay kuwii noo sheegayay ayaaba hadda gabadhaasi ehelkeedii diidan inay qaabilaan beentii shalay run baa ka daba timid intii sheegi jirtay oon anigu ka mid ahay cafisan weydiisanaya shacabka laakiin maanta kadib inaanan been dambe lay sheegi doonin ayaan ummadayda u ballan qaadaya runtaana ummadayda la hortaagnana ilaahayo may laba qofood runtayda gaadho wixii shalay dhacana anaa meeshaan u fadhiya anaa ka shafaya ku xirno mar walba channelka aftahan production nabadgelyo